عليكم ورحمة الله وبركاته وعن wanaagsan daawadayaal lahaantiinba ku soo dhawaada warkeena maalin laha aha oo aad kala socon jirteen Murti Media warkana waxa idin la socodsiinaysaa anigoo ah Nimcada iyo Maxamed waa maalin Isniin ah 1 February 2021 qodobada ugu doorka roon warkeena maantana waxa kamid ah golaha kabineetka dawladda deegaanka Soomaalida ayaa saaka yeeshay kulankoodii caadiga ahaa al-shabaab oo sheegtay sababta ay u dileen General Galaal haddana ku soo dhawaada daawadayaal qodobadan iyo qodobo kale oo faahfaahsan golaha kabineetka dawladda deegaanka Soomaalida ayaa saaka yeeshay kulankoodii caadiga ahaa kulankan ay yeesheen golaha kabineetka ee dawladda deegaanka Soomaalida oo hogaaminaya madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar ayaa looga hadlay afar qodob oo kala ahaa dhageysiga warbixinta waxqabadka sanad miisaaniyadda 6 bilood ee la soo dhaafay ee xukuumadda bayaanka adeegsiga af Soomaaliga ee dhinaca daabacaadda sida ogeysiisyada iyo boorarka magaalada bayaanka miisaaniyadda dheeriga ah ee deegaanka bayaanka asaasida komishanka shaqo abuurka ee dawladda deegaanka Soomaalida golaha howlfulinta ayaa yeeshay dood ku saabsan warbixinta waxqabadkii 6 bilood ee la soo dhaafay waxaana lagu soo bandhigay mashaariicaha laga fuliyay deegaanka wax ka qabashada baahiyada asaasiga ah ee bulshada iyo guud ahaan mashaariicaha horumarineed golaha ayaa dood kadib cod buuxa ku meelmariyay in warbixintan la horgeeyo kalfadhiga baarlamaanka ee saaka ka furmay madasha kulamada ee qaryaandhoodaan ee magaalada Jigjiga shirkadda adeega korontada oo sheegtay inay 125 magaalo ay heleen adeega korontada muddo 6 bilood ah shirkadda adeega korontada ee Itoobiya ayaa sheegtay inay 125 magaalo oo cusub ku heleen adeega korontada muddo 6 bilood gudahood ah shirkadda ayaa sheegtay inay 78% gaadhay qorshaheedii ahaa inay 161 magaalo oo cusub helaan adeega quwadda korontada shirkadda ayaa sidoo kale sheegtay inay 10 magaalo oo kalena dib u dhis ku samaysay adeegooda koronto sida ay shirkaddu sheegtay 135 magaalo ayaa helay adeega korontada marka lagu daro 10kaas dib u dhiska lagu sameeyay shirkadda ayaa sidoo kale sheegtay inay dhistay 1439 kilomitir oo xadhkaha leydhka gudbinaya ah iyo 427 haamood oo kuwa leydhka qaybiya ah muddadii 6 bilood ahayd ee la soo dhaafay si reer miyigu ay u helaan adeega korontada sidoo kale warbixin aanu ka hayno weerarkii Hotel Africa ayaa sheegay in booliska magaalada Muqdisho oo ka warbixiyay weerarkii Hotel Africa ee agagaarka kiiloomitir 4 booliska ayaa sheegay in khasaaraha weerarka ka dhashay uu yahay ilaa hadda inta la og yahay 4 qof oo kuwii weerarka geystay ah oo mid ka mid ah uu gaariga qaraxa geystay isku qarxiyay 3 kalena ay ciidanka dawladdu dileen iyo 5 qof oo hotelka ku dhimatay iyo sidoo kale dhaawac tobaneeyo ah oo dhakhtarada lagu dabiibayo booliska ayaa sheegay inuu khasaaruhu inta ka badan karo balse ilaa hadda intay xaqiijiyeen ay tahay 9 qof dhimashada iyo tobaneeyo dhaawac booliska ayaana sheegin wax khasaare ah oo dhankii ciidamada dawladda soo gaadhay 5 ruux ee gudaha hotelka ku dhimatay ayaa waxa kamid ah General Galaal oo kamid ahaan jiray dawladda kacaanka ee uu hogaaminayay Maxamed Siyaad Barre al-shabaab oo sheegtay sababta ay u dileen General Galaal al-shabaab oo shalay galab weerar ku soo qaaday Hotel Africa oo ku yaala agagaarka kiiloomitir 4 ee magaalada Muqdisho isla markaana qarax ka geystay hotelkaas ayaa dilay General Maxamed Nuur Galaal iyo dad kale al-shabaab ayaa sheegay inay generalka ay u haysteen weerar dhowr ah oo hore loogu geystay iyaga oo isagu ka dambeeyay waa sida ay baahisay BBC Somali weerarada ay General Galaal u haysteen ayaa waxa kamid ah weerarkii lagu dilay Aadan Xaashi Cayrow oo ahaa asaasi al-shabaab weerarkaas oo ay geysteen ciidamada Mareykanku Cayrow ayaa lagu dilay magaalada Dhuusamareeb bishii May 2008 al-shabaab ayaa sheegay inuu General Galaal sidoo kale soo abaabulay ahlu sunna wal jamaa oo dagaal kula jira al-shabaab waxay sidoo kale sheegeen inay ku raad joogeen muddo 13 sano ah dadka weerarka ku dhintay ayaa waxa sidoo kale kamid ahaa 2 dhalinyaro ah oo 9 maalmood uu aroos ku ahaa hotelka sida uu BBC u sheegay aabaha dhalay gabadha arooska ahayd marka xigta ku kulmi doona hawada daawadayaal waxaan idinkaga tegaynaa sida ay amaana Allah